السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكeen maanta waxaan kaga tala bixinaynaa maxaa sababa gacmaha ololka. waxyaabo badan sababaan gacmaha inay ololaan. waxyaabahaas waxaa kamid ah qofka in heerkulka jirkiisa oo kale uu kor u kaco. hadii pressure-ka dhiigga uu kor u kaco waxay ku sababi kartaa qofka in gacmaha iyo lugaha uu ka dareemo olol. sidoo kale waxaa keeni kara deegaanka xataa hadii deegaan kulul markaas aad joogtid oo kale waxay kugu sababi kartaa in lugaha iyo gacmaha aad kuleel ka dareentid. sidoo kale tan dumarkay qaas u tahay xaaladaha qaar markay ku jiraan oo kale in lugaha iyo gacmaha zaaid olol ugu dareemaan keentaa. dhowr waxyaabooda sababi karo. sidoo kale waxaa kamid ah caabuqyada qaar oo ku dhaca maqaarka sida caabuq loo yaqaano cellulitis-ka. caabuqaas wuxuu sababi karaa in kuleel la dareemo, gacmaha iyo lugaha kuleel laga dareemo. sidoo kale caabuqaas waxaa lagu dareemi karaa meeshii uu saameeyay in kalarkeeda isbedesho kale gaduud ay noqoto. sidoo kale maqaarkii ama goobtii uu saameeyay in ay barraan oo kale lugihii gacmihi la arki karaa. waxaa jira caabuq kale asna oo ku dhaca kala goosyada, asna wuxuu qofka ku sababi karaa ama uu kamid yahay waxyaabaha ku sababa qofka in gacmihi iyo lugihii ay kululaadaan oo kale. sidoo kale xitaa jimicsiga ay sameynayaan markaas gacmaha iyo lugaha qofka uu sameynayo kale ayadan waxay ku sababi kartaa gacmaha kuleel iyo lugihii oo kululaado iyo gacmihii ay kululaado. sidoo kale waxaa sababi kara xaalado ku dhaco neerfayaasha gacmaha iyo lugaha. tusaale hadii cadaadis la saaro neerfaha mara gacanta amaba gacanta quudiyo kaasoo loo yaqaano medium nerve waxay ku sababi kartaa qofka in gacmaha laga dareemo kuleel. sidoo kale peripheral neuropathy ayadana waa cudur ku dhaca neerfayaasha ku yaala qeybaha shishe ee jirka sida lugaha iyo gacmaha. waxay ku sababi karaan kuleel, lugaha iyo gacmaha ay sababi karaan. sidoo kale waxaa sababa in gacmaha iyo lugaha olol laga dareemo xaalad loo yaqaano fibromyalgia oo ah in dhammaan murqaha jirka laga dareemo xanuunkaas oo la socdo olol. marka hadii aad isku aragtid calaamadahan waxaa haboon inaad dhakhtar la xiriirtid. tusaale hadii aad isku aragtid gacmo ololkaas oo la socdo kabaabiyo amaba xanuun waxaa haboon inaad dhakhtar la xiriirtid si loo ogaado wax sababay amaba keenay.